إذا إسبدل كبني آدم كعقله قبل ما إسبدل كماتيريال لكو بجرايه ما ماتيريال لكو بجرايه عرفت الدار ده أربعين استي لكن ما حبي سوكر ديين سكاي سكرابس بي وضع ديسين أنا قاعد دار تيدا تينا كده والله بدار عيرك قبل إن شاء الله وضع ديسين لم يقول روح بدل بالسبي وحاسمها وحبة بدلها ماتيريال كود سوكر بيسو هرمركم معها هرمركم بني آدم كود بدشوا سيدو فكريو سيدو وحب عريو سيدو وحق بنيو بني آدم كو يسقى مركع دقالها سمية يسقى وحصوصار كسمية يسقى وحا كسمية جيرماني دولك لا سمي لكن عقلي جاي هرو بدلين دولك مركي لا سمي وحي كدغان maxay مالك بن النبي با wuxuu oran jiray markii dhulka la samay Germany hadii Jarmalka la soo qaadi lahayo wadan Afrikaan la dhexdhigi lahaa buu kuwa Afrikaanka ee degan la qaadi lahayo Germany la geyn lahaa kuwaasina meel dulsan u iska noolaan lahaay buu leeyahay kuwa la soo qaaday Jarmalna wadan cusub يدل عصب يسوي يعني هو بني آدم كا سيدو فكر يسوع وارك يسوع وقبر يا الاسبدلا إذا كادر كانوا ربنا ما هان لدهمي ما هشهاده وراقات سيدتو حق سرنا كروس كسوري حق هوسنا يكون قرنت in the name of law بسم القانون حتى بسم الله الرحمن الرحيم وطالله بسم القانون يكون تيك عامكم بحين شريبه وحسن نوقو قرأ تسيد الروضة الصومالية وكقاضي حتى بسم الله الرحمن الرحيم ولا هين بسم القانون باكو قري in the name of law شهادة وراقة ما تنفع حبا كورين ميش هذا هو ماستر هو فيرست ديجري بوسيتا يا لبا ماستر بوسيتا يا لبا بي اتش دي بوسيتا هذا ما تنفع هو وراقه لكن هداد ادو قف اسبدليت هيس مركز معنا سمينيسا PhD gaagu wuxuu macna sameynaya marka tahay mutaallim rasmi scholar rasmi marka tahay marka aad nolosha wax ka bedelayso marka aan thaqaafadii odayada dib noogu celinaynin laakiin haddaad inta halka tagto safka halkii kaga beerto wadanka marka aad tiraahdo halkeeba dhadhan badan halkeeba wax laga xadaa dawladda halkeeba wax laga khiyaameyn karaa farsamadaadu ay noqoto good accountant baan ay wax isweydaarin karaa oo waraaqad beena soo saari kara bahashana la bixi kara waxba tuuganimadu ma xirfad soo baratay tuuganimada ay ma xirfad soo baratay marka waxaan u baahanay waxa weeyaan ka maanta dunidana isticmaar jadiida jira isticmaarka cusub ni colonialismka cusub waa isticmaar sida quraanjada dhulka marayso buu ka soo hoos baxaya gurigaaga adigoo dhistay u badarkaysa oo iyadoo quraanjo meel daldalooliso ka soo dhex baxday jeexjeexu ka soo baxaya oo waa maxay jeexjeexu midunba ka soo dhex baayay kule الخدمات العامة بان idinku taageeraya caafimaadkan idinka caawinayna tacliintan idinka caawinayna askartan waxsiinayna shurtadan caawinayna qaanuunka iyo maxkamadahan wax tarayna xuquuqul bini'aadamkan kordhinayna dumarkan xoreynayna caruurta iyo xuquuqdoodan ilaalin waxaas ay u wadaan kaaga soo dhex baxayaan bay bulshada bedelayaan ay dhaahdaan dunidan dambe subversion theory bini'aadamka gudihiisa laga jabiyay laguma duula bay yiraahdeen gudihiisa laga jabiyaa waxaan rabnaa mujtamacaadkeena way sii burburayaan siyaasi ahaan bulsho ahaan dhaqaale ahaan waa sii dumayaan taxadiyaad khaarij kuwa daakhiliya wayna haystaan laakiin kuwa daakhiliga gudaha ka jira ba xaqiiqo ah taxadiyaad dhab ah haday qabiil tahay haday mukhaadaraad tahay maanta wadanka Soomaaliya gobolada gobol kasta ama dawlad goboleedyada ama dawladaha madax banaanida sheegtay marka la isku daro meel kasta barjadka dawladda barjadka qaadka ku cunaan ba ka badan Soomaaliland mesela barjadka dawladdu 300 milyan buu ahaa meelaha sumaray Itoobiya qaadka qura ay ka iibsadaan 540 milyan bay iibsadaan qiyaas adigu ummad muqaddarka ay cuntaa uu ka badan yahay maxay barjadka dhan ee dawladdu leedahay marka la isku daro ma inagoo qura ma xataa caalamul islaami waa lamid dunida carbeed oo dhan marka la isku daro wasaaradaha tacliinta iyo wasaaradaha maxay sixada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta oo dhan marka la isku daro wasaaradda sigaar cabiska ka lacag badan bal qiyaas adigu caalamul islaami oo dhan marka la isku daro
sigaarka iibsadaa baa wuxuu ka badan yahay wasaaratu sixa iyo wasaaratu tacliim waxaa ku baxa waa carab oo dhan markaad isku darto bilbalaayiin baa sigaar lagu cabaa idan isbeddelkaynu rabnaa daara maaha isbeddelka aynu doonaynaa ama mutacalimka aynu rabno ama scholarka aynu doonayno inuu waddankii tago intellectualka rabnaa maaha intellectual daar noo dhisa ama dhaqaalo sameeya kaas maaha asalka waxaa asalkaa intellectual bini aadamka wax ka bedeli kara waxaana bini aadamka wax ka bedeli kara qof isagu bedelmay qof isagu aqoon-yahan noqday qof isagu muthaqaf noqday taxadiyaadkeena daakhiliga waa kuwa waa xadkaas qabiil waxba ay ka socon waayeen dowladnimada soomaaliya way soo yimaadaan maxay qaadaan soomaaliyay toosoo dabeetana way ooyaan shirarkooda waxaad sonaysaa war wallaahi waa kan ilaahay soo hadeeyey cabaar markay ooyaan bay isdooranayaan oo qolo fanaaniini gabaydo oo heesa la tiriyo oo calan la huwado oo caynka la sameeyo ayaa dowlad la doortaa dowladda marka hore la dooranayo reer waliba wuxuu isleeyahay dee ama madaxweynahaad heli ama ra-iisul wasaarahaad heli ama kambaad heli dee qolunbaa soo baxaysa qola markay soo baxdo inta dambe waxay dhahaan waryaadhe nimankii reer hebel baa meesha qabsadee yaynagu dowladoobin haddaba caga haya afartiisa sane caguhun baa la hayaa ila reer hebel baa laga ilaalinaya magaca iyo maamulka iyo maamuuska afar sane markaynu halkii un taagannahay ayuunbaa haddana heesihii dib loo qaadaa soomaaliyay tooso waa kii shirkii labaatanaad baynu ma ummad 20 goor shirtaad aragtay waan dowlad u dhalanaynin kayf yumkin idan maaha masaladu miyaynan shirayn maaha miyaynan dowlad samaynayn maaha waxa masaladu waxa weeyaan cultural revolution baynu u baahanay waxaynu u baahanay dhaqan bedel waa layna dhaqan bedelay ummad suldaankeedu qayelayo madaxweynaheedu qayelayo maamuuskeedu qayelayo wada muqaddara ummad qof waliba wuxuu soo gaaro u xadayo ummad qof waliba wax kasta uu qaadanayo inteeda badani dee ma jirto waxaan tiiriyadana dowladda hal qaqayga wax lagu oranay maxaa dowladda uga qayb gal wadaadada maxay ka idinku ahlu taqwaysan hadii madaxweyne laga dhigo waxba isbedeli maayaan way dowladnimadu waa ummad nin maaha qof iyo laba iyo saddex maaha waa ummad fikrad rumaysatay oo wax qaadatay oo ku socota haddaan taasi jirin qof iyo laba iyo saddex iyo ka ugu daacadsan haddii la geeyo huwa intii kala caga haysa muxuu samaynayaa nin reer hebelun buu noqonayaa sumadaasu yeelanaya markuu meesha tagay reer hebeladii kalena waxay leeyihin cagaa hayday kugu dowladoobine marka ayuha alaxiba waxay leeyihin waxaan u baahannahay dacfi alwacyi alcaam baa jira aqoon-yahanku waa qofka bedela bay yidhaahdaan waa sunaacu ra'yi waa dadka bedela cuquusha ummadda oo waa maxay ummaddu cuquusheeda waa la bedelaa sida wuxuu aragtay waa laga bedelaa mashaakilkuna guduhu ka yimaada ilaahay wuxuu leeyahay laqad manna allahu cala almu'miniin laqad manna allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaati wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لبدنا آيات اسكو حيقان في سورة آل عمران إلهي وحولي دتك مؤمنين تا إلهي وحيدون كو قلا ضيستي دتك مؤمنين تا ربي وحو كن معيستي أو كو قلا ضيستي رسول إيجا كميدا وإلهي آيات كيسا كدو الأخرين إياه وتزكية نفتو ذا ربين يحمها كطاهر ياليه oo kitaabka iyo xikmadda baraya inkastoo ay markii hore dad baadiya ahaayeen idan manhaj sax baa ilaahay idin siiyey baa la leeyahay laakiin haddaa manhajka ka weecataan maxaa dhacaya waa jabaysaan maca aad manhaj saxa haysatid haddaad raaci weydo yani nolosha ilaahay wuxuu tilmaamayaa sunan there is a law qaanuun baa jira ilaahay nolosha u dejiyey oo haddaad ka saxa martana aad guulaysanayso haddaad ka qaldan martana aad jabayso سادرات بقى آياتك وحكتها إلهي وحليه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها مركي أيدن هلا شيء بلايو دب إيكو بقى هدتك كلا مثل ما دقار سيسين أي واحد ترى قلت من هذا كيف هذا سوى حكا نودع صانو شبنا من المؤمنين هين إلهي وحكو شواب قل هو من عند أنفسكم إذنكم بودكم يتكيم إذنكم بودكم يتكيم
إذا كم بدك يدهي معناه دوا محي وحلا خالد با حريفة إيو عيد با نجبيسي وحسوا مرمرسيو عيبت هذا إن عيد كلا دوشة كسر توا مرمرسيو إثيوبيا نجبيسي كينيا نجبيسي مجتمع الدولي قابا نجبيي وروح سوا مرمرسيو دول دول ده بيو يسري حيسي إثيوبيا هذا ما دلانين كينيا هذا ما دلانين maraykanku hadda ma dhalan markaad jirtayba kuwaniba way jireen haddii qofka difaaciisu jabo مثلا xanuunkan AIDS-ka la yidhaha waa maxay soo maaha difaacii jidhka ilaahay jidhka difaac buu siiyey heegana oo wax kastoo soo galo weerar ku qaadaya difaacaasi oo leba yidhaahdaan gantaala leh oo basaasiin leh oo kan leh waa difaac dhammaystiran قاب عيدا ودقالما مركز وايد بلشرسك يسي ودقال وقاب عيدا بيوليسيين waxa kasto weeraro dabad kaga yimaada virus han noqdo maxaa la yiraahdaa bacteria han noqdo fungus ana wuxuu doonay han noqdo wuu difaaca jirka hadii difaacagaasi burburo wax kastaaba way ku dilayaan ina duray u dhimataaba u badantay sida caadiga miyaynu naqaano qof duray u dhinta hadii difaacu jabo wax waliba waxay yiraahdaan bacteriyaadkaaga bacteria jirta jirka ku jirta oo markuu difaacagu soo jeedo ogol mabdaa taayush silmi inay nabad ku gula noolaato waxba ku yeelaynin laakiin haday aragto difaacaga oo seexday inta badeed baa uma baahnid bay leeyihiin inta kugu jirta weerarka qaadaysa then you will be on bed sariirta weerad markaa lagu saaraa